السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داوديال كسو دوادة تبينتينا ورركي قدام بي سوماليد اي عالمك وحاد سيتو سكالا سعوتان channel كينا هاga ميديا قضباد اوغوا وين اي ورركينا نينكو سو قدبين دونو ايا وحا كميدا موشينكي لغا كينا يقدوم يكو حيقينك كوباد اي قولها شعبك سعديا فريمبي او حيساد حوغان اي كدالتي يحلبانو اسكو ررسان ايا قيبا كميدا مقالة مقديشو قدوميها قبل كهيران او يساقب بحي قدي هوري لو قدري كا او tilmaamay inuu fashilmay ganacsada caan ah oo lagu dilay caabudwa iyo xiisad beeleed halkaas laga soo warinayo baaritaanka dilkii Bakaal Kooke oo lugaha la galay sirdoonka Itoobiya iyo kacdoonka dhinaca ciidamada Itoobiya oo ka socda qaybo kamid ah gobolka Gado sidoo kalena waxaan eegi doonaa xogo dheeraad ah oo ku saabsan dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso channelkeena nagu soo biir subscribe de gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtanaha naga ilaabin waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraya guuxa siyaasadeed ee ka dhanka ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo ay xildhibaanada qaar ka gudbiyeen mooshin culus oo ay xilkeeda ku weyn karto mooshinkan oo salka ku haya hadalkii Sacdiye ee ku aadanaa xeerka jinsiga ee muranka badan dhaliyay ayaa hadda waxa uu yeeshay waji cusub sida uu sheegay siyaasi Khalid Gaabane oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed siyaasigan oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Somali Cable ayaa si weyn u difaacay xildhibaanada wuxuuna sheegay inaysan jirin xadgudub ay sameysay sida uu ku doodayo xildhibaanad Sacdiye Xaaji Samatar balse ay jiraan dad ka faa'iideysanaya hadalkii ka soo yeeray Sacdiye kitaab Qur'aan ah oo ay ku xadgudubtay oo mooshin Qur'aanka lagu difaaca la leeyahay waxaas waa waxba kama jiraan ayuu yiri sidoo kale wuxuu tilmaamay in qorshahan laga leeyahay dana siyaasadeed isaga oo ku eedeeyay in uu ka dambeeyo wasiirka waxbarashada Faarax Sheekh Cabduqaadir oo kamid ah gacmaha sida weyn ula shaqeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kiiskani waxa gadaal ka taagan oo raali ka ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ahna wasiirka wasaaradda ahna saaxiibka madaxweynaha ayuu raaciyay Khalid Gaabane oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in wasiirka uu doonayo in uu ku soo biiro baarlamaanka kadibna uu ku fariisto kursiga xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar maadaama qof ay isku jifa ahaayeen horay kursigaas uu ugu fadhiyay balse uu waayay kaasi oo ahaa Cabdiwali Sheekh Ibrahim Muudey Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa doonaya kursiga Sacdiye sida daraadeed wuxuu isku diyaarinayaa in uu baarlamaanka ku soo biiro gaar ahaan kursiga Hob Eber 86 oo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ku guuleystay balse loo diiday maalmo ka hor ayaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxay geeyeen baarlamaanka hortiisa mooshin ay ku dalbanayaan in xilka laga tuuro Sacdiye Xaaji Samatar waxaana mooshinkan dadka qaar ay yiraahdeen dana siyaasadeed ayaa ku hoos doogan dad ayaa yiri Fahad iyo Farmaajo ayaa ka dambeeya dadna waxay leeyihiin Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa ka dambeeya asaate group WhatsApp ah oo ay sameysteen xildhibaanada mooshinka wada ayaa loogu magac daray aayaha baarlamaanka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoona ay ku jiraan in ka badan 170 xildhibaan kuwaasi oo doonaya in ay ka dhabeeyaan isku daygan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa isaga baxay guddi horay loogu daray isagoo cadeeyay in guddigaas uu fashilmay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa qaatay tallaabo lama filaan ah kadib go'aan culus oo uu maanta qaatay Cali Jeyte ayaa shaaca ka qaaday inuu isaga baxay xubinnimada guddiga maaliyadda ee taakuleynta ciidamada dib u xoreynta gobolka Hiiraan kaasi oo horay loogu daray gudoomiyaha ayaa sheegay in guddigan uu gabay waajibaadkii shaqo ee loo igmaday isla markaana uu noqday guddiga mid ay ka dhex jirto habacsanaan aad u weyn sida daraadeed laga bilaabo 12 bisha 12aad 2022 waxaan cadeynayaa inaan ka baxay guddiga maaliyadda ee taakuleynta ciidamada dib u xoreynta gobolka Hiiraan ayuu hadalkiisa ku sii daray sidoo kale wuxuu go'aankan gudoomiyuhu kula socodsiiyay madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa oo markii hore magacaabay xubinnimada isaga ee guddigan la xiriirta dhanka kale Cali Jeyte ayaa xusay in halgankiisa uu sii wadi doono isla markaana uu hogaamin doono howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ninkan ayaa si aad ah uga soo muuqday kacdoonka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan looga xoreeyay inta badan isla markaana kooxda Al-Shabaab ayaa u muuqata inay tahay xilligan koox guuldarro aad u weyn kala kulantay meelo badan oo kamid ah gobolkaasi
dilkii allaha u naxariistay taliyihii nabad sugidda ee gobolka Gado Bakaal Kooke ayaa laga hadla galay ciidamada sirdoonka Ethiopia iyadoo kacdoon ka dhana ciidamada Ethiopia laga dareemayo gobolka Gado. Siyaasi ka soo jeeda gobolka Gado iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ciidanka Ethiopia u qabsaday dilka taliyihii nisa ee gobolka Gado Bakaal Kooke oo jimcihii aynu ka soo gudubnay xilli habeen ah lagu dilay agagaarka Doolow. siyaasiyiinta reer Gado ayaa sheegay in sirdoonka Ethiopia ay qarax gaarigiisa ugu xireen taliya Bakaal Kooke iyagoo sheegay in muddo dheer ay Ethiopia qorsheynaysay dilka Bakaal Kooke. Karaar Aadan Ruku oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Gado ayaa sheegay arrinkan inay ku ogaadeen baaritaan ay sameeyeen rag 77 Ethiopia la dagaalami jiray oo dhagartooda yaqaana, waxaana uu tilmaamay in arrintan loo xilsaaray isla markaana ay si dhab ah u soo ogaadeen. wuxuu sheegay in ninkan uu muddo dheer gobolkaas ka hortaagnaa Al-Shabaab balse uu beegsaday cadow uusan iska jirayn. sidoo kalena ninkan ayaa cadeeyay taliska sare ee NISA inuusan wax lug ah ku lahayn dilka Bakaal Kooke. dadka dhahaya Mahad Salaad ayaa ka dambeeyay dilka Bakaal waxay marin habaabinayaan xogta rasmiga ah. ninkaas aad ayay isugu fiicnaayeen. Mahad wuxuu ahaa nin ay Soomaalinimada ku weyneed ayuu yiri. sidoo kale wuxuu sheegay in gobolka Gado uu ka curtay kacdoon ka dhana ciidamada Ethiopia. maanta waan u tagnay ciidanka Ethiopia waxaan dhahnay ka soo jawaaba eedan waan ka warsugaynaa haddaan jawaab fiican ka weynana Ethiopia Gado siima joogi doonaan ayuu yiri isaga oo aad u caraysan. dilka Bakaal Kooke ayaa dad badan ay shaki galiyeen qaabka uu ku dhacay iyo halka uu ka dhacayba. isla markaana Bakaal waxa uu ahaa nin gacanta ku hayay gobolka Gado oo idil. barashada quraanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah, siibahaan waalidka qurbaa ku nool. waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee Madrasatul Quraan Online oo ah dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca. waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka. culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka, barashada higaada afka Carabiga, barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga, axaadiista, tafsiirka iyo culum aad u fara badan. dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida. waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la barayo diinteena islaamka. haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga Madrasatul Quraan Online. wixii faahfaahinta inta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefanada shaashada idinka muuqda. wararka naga soo gaaraya qaybo ka mid ah Caabud Waaq oo Galgaduud ahna waxay sheegayaan in lagu dilay halkaasi ganacsade caan ah, arrintaas oo xiisad ay ka dhalatay. xogtu waxay tilmaamaysaa in maleeshiyaad hubeysan ay bartamaha degmadaas shalay galabkii ku dileen ganacsade caan ka ahaa iyagoo dilka kadib goobta isaga baxsaday. maleeshiyaadka ayaa ganacsadaha oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Cabdinuur ku dilay kaalin shidaal oo uu ku lahaa xaafadda Waaberi ee bartamaha degmada Caabud Waaq sida ay goobjoogayaal xaqiijiyeen. wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in dilkan uu salka ku hayo arrimo la xiriira dilal aanooyin qabiil oo ka dhaxeeya qaar ka mid ah beelaha degmada Caabud Waaq kuwaas oo dhowr jeer soo laablaabtay. ciidamo ka tirsan laamaha amniga degmada Caabud Waaq ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay iyaga oo baadigoobaya dadkii ka dambeeyay dilkaas walow aysan ku guuleysan in ay soo qabtaan. hase yeeshee meydka marxuumka ayay goobta ka qaadeen. maamulka iyo laamaha amniga degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaan weli wax war ah ka soo saarin arrintan oo xiisad xoogan ay ka dhalatay. ururka Al-Shabaab waxa ay luminayaan marba marka ka dambeysa deegaano muhiim ah oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud iyadoo magaalada Al-Kowsar oo ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe ay gacanta u soo gashay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda. tallaabadan ayaa loo arkaa in Al-Shabaabkii ka baxay aadan yabaal oo halkaasi u ruqaansaday ay isaga sii baxeen isla markaana Al-Shabaab hal degmo oo kaliya ay uga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabelle waana Ruunirgood oo la yiri caga badan kuma taagna ururka Al-Shabaab. waxaana dadka intooda badan ay aad iyo aad u hadal hayaan howlgalkan iyo goorta la soo gabagabeyn doono.
guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigay intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo.